السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إسلام دبا أمد مسلم كنا نستعدوك أكيد كان سومالي وين waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin maalmahan oo dhan social media haweeneyda isku haysteen oo aniga iga hadlayso oo ku saabsan sababta uu u baaqday programka lagu yiraahdo Somali International Fashion Show aniga uga baaqday. waxaan rabaa inaan sida saxda ah oo Ilaahay loo geeyay inaan uga hadlo oo aan ku jirin maxaa la isha been aan ku jirin maxaa la isha dabalnaan kale horta daan sharaxa programkan sababta aan u imid horta waxay invite gareyn ama casuumad soo taqaanaa bal soo casuumadan ku imaaday oo marka laga hadlaayo dad baa ka soo hadlay lacag buu qaatay markaasuu programkan kama qayb galin arrinta lacagta ah wax la yiraahdo lacag horta marka hore kuma imaan waxaan ku imaaday casuumad sharaf taas halkaas number 1 tan labaad ah maxaa la ii sheegay horta waxaan rabaa inaan saddex u kala dhigo waxaan saddex ugu kala dhigaa tan koowaad aan inaan ka hadlo horta waxa la yiri qofku markuu caloosha ka baahan yahay uu dhargi karaa oo markuu cunto cuno ku dhargaa hore ugu sii socdaa laakiin markuu qofka qalbiga ka baahan yahay qofka qalbiga ka baahan waa wax adduunka ugu daran marka qofku markuu qalbiga ka baahan yahay markuu maanta hadda markuu duhurnimada qadeeyo waa inuu ka fikiraa maxaa hadda casriye ka dhigan lahayd maxaad ku casheen lahayd caawda maxaa biri ku quraacan lahayd maxaad ku qadin lahayd maxaa weyn dad ku casheen lahayd marka intaas si uu u helo waa inuu been sheegaa waa inuu wuxuu doono ku hadlaa waa inuu wuxuu sameeyay ku hadlaa inta ka soo hadashay programkan hadda baaqashada programkan aan ka baaqday qof ku soo hadlo ma jiro wax runa qof ku soo hadlay wax sax maanta oo la hubay iyo wax meesha ka dhacay qof ku soo hadlo ma jiro marka waxaan leeyahay tan number 1 waxa uga baxaya qofku markuu caloosha ka baahan yahay uu dhargi karaa laakiin markuu qalbiga ka baahan yahay ma dhargi karo waa inuu wuxuu doono sameeyaa been iyo wuxuu doono taas halkaas uga baxay tan labaad aan rabaa markii aan galo tan labaad waxaan uga hadlayaa arrinta sida saxda ah ee khilaafka ka imaaday sababtay ku dhacday aan ka hadlayo horta number 1 aniga waxa ii soo diray rag baa casuumad ii soo diray hadal rageed baan ku soo baxay go'aan rageed baan ku soo baxay go'aan rageed aan meeshan ku imaaday nagoo imaanay hotelka degan markii la gaaray xilliga habeenkii inaan isdiyaarino ahayd hoos aan u degano hotelka aan deganaa la kaliya xaflad lagu dhigay marka hotelka inaan hoos u degano xilliga laga rabay inaan hoos u degano ka qayb galno programka baa gabar imaaday gudaha noogu soo gashay markaas waxay dhahday salaamu calaykum iyadoo gabadhii muransan markaas waxay dhahday waxaan rabaa waxaan gabadhii iyadoo waxaan u soo invite gareeyay dayax inuu u heeso in athletic madax ah oo meeshan joogo oo ka soo qayb gala programka waxay tiri waxaan u soo casuumay inuu ninkaas aniga igu heeso aniga fahmi waayay hadalka wiilasha isu casuumay kamid ah banaanka joogeen aniga gudaha ku jiro qolka ayaga markaa meesha ka banaanka ay ku murmaayeen ayaga yaa murmeen marka aan imaba galinba waa hawsha dhameystaan hoos aan u degnay marka aan hoos u degnay la rabay xafladii nooga dhiman tahay albaabka bas inaan ka galno meesha dadku isku diyaarin lahaayeen dadka modelka ku libisanay wixii oo dhan marka taaganahay ay gabadha haddana igu soo laabtay noo imaadaan xaaskeeda meesha isla taagan marka noo imaaday waxay tiri salaamu calaykum haddii ay ka qayb galayso programka waxaa shardi ah inaad telefishin bay sheegtay magaciisa aynu ma aqaano laakiin telefishinkaasna inaad berrito waraysi siiso waxaan dhahay excuse me sister maxaa u baahan tahay yaana tahay intaas ka timid intaas ka socdaa waxay tiri qofka programkan watay gabadha programkan dhan wadatay waa aniga marka aniga hadal uma furin ma xiri waa ka anagoo yani jawaabteeda diidan bay isku imaadeen ayaga marka isku imaayay dadka programka watay ee ay isu casuumtay ayaga iskhilaafeen ayaga dagaaleen waa baxnay koran fuulnay markaan kor fuulay haddana waa noola imaaday waxaa la yiri maadaama wiilka adnaan la dhahaan isu casuumay adnaanka ay imaaday wuxuu dhahay madaxayga fiir wajigayga fiir madama khilaaf xaggaas ah ma dhici doono markaan soo laabanay anagoo hotelka u baahnaa dana mar labaad inaan galno baa wiilashii ka mid ahaa ayagana programkii baa ani gabadhii xaggeeda jiray oo haddana ii sheegeen inay gabadhii iyagu islahaayeen marka xaggayga soo alxamda iga raali ahaa waxaan u baahanahay inaan program ka qayb galo marka ha ii soo dhawaaneen oo xaggaas iga tag wiilkii markaas maxaa la ii sheegay anaga iskhilaafnay iyo wiilkii kale aniga soo dejiyaa aamurmeen markay murankiiba wuxuu ku dhamaaday inay iyagu intii soo baxaan iska isku balbalaan isku dagaalaan programka meesha ku dhamaaday qaybta labaad xaggaas uga baxay marka programka laga hadlaayo waxaan rabaa marka inaan midda saddexaad u gudbo oo beenta ay dadka magaalada wareejinayaan iyo social media YouTube meel walba ay wadaan waxaan rabaa inaan taas si sax ah marka uga hadlo ee dadku ka hadlayaan waa arrinta farxiyo saddexaad ku soo gabagabeyn doona
horta farxiin waxay kaga sheegayaan horta habeenkii ilaahay baa ila ogiyay rasuulkiisa wax beenaan kuma daraayo farxiyo inta aniga sawirka ila galaysay iyada inta sawirka la galaysay ayadaaba iga badneen ba aniga oo qofba aan ima rabin ba ayada dadku dhan ayada sawir la galayeen oo ayada famous kale ahayd so waxay tiraahdeen gabar baa intay dayax u imaaday ay tiri sawir baa kula galay wuxuu yiri dayax inta marka hore farxiyo u tay ka soo qaado horta maanyaradaas iyo aqliyaradaas iyo fudeedkaas iyo hadal daciifnaantaas qof ay ka muuqato oo dhashay oo lagu yaqaan Ilaahay kama dhigin ummi tan labaad marka arinta farxiyo ka hadlaysaan farxiyo kalsoonida ku jirto ma aha meel inta la yimaado gabartiida sawir aan kula galo qof maxaa la isha ka soo faqada kalsooni daradaas lama haysan anaga farxiyo waa boqorad sidii boqoradii kale u nooshahay ragga intay meelaha soo fariistaan arinta farxiyo ka hadlaayo وأنا حشون وجبر دمشق وأنا حدلين وأنا إني كهلا إني قلت هاي كهلايو فرحيو والرج يعني رجع كهلايو والرج قرنا والحاسس كذا سيد جاري أجنبي وجرج وش بس حاسس كذا يقولون ترى ما بعنا هذا وحنا نشر سيد البقرة دي ننجح عليها ستة الحمد لله وحصلنا كلسوني ده قبط أنا وحول البكوي كلسوني دي قبطنا هيك ضعيف ومعها إني كده هذا جبر صبر هلا جليو qof taageerayaasha iidaaba igu dhiirigeliso igu soo dhaweyso tirada kale dadka aan taageer ayadaba iga jecel yihiin baaniga oo saxda ah marka assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh banaadsantiin dadka faaniskay ah waxa hadalkay ku soo gabagabeynaya oo hadalkan aan ku soo afjari doonaa hal eray inaan isticmaashaan wixii sida dayax si qaldan loo hadlay aragtaan hal eray bilis isticmaalatan anaa keensan qofku markuu caloosha u baahan yahay wadharga laakiin markuu qalbiga ka baahan yahay ma dhargaayo thank you